kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada halkan ku xiran youtube-ka janalka Barca 252 waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. haddaa janalka Barca 252 ku cusub tahay subscribe saaro si kusoo gaaraan muuqaaladii soo socda. muuqaalkan sheergaraya mahadsanidin. soo dhawaada saaxiibayaal. kooxda Barcelona ayaa caawa ciyaari doonto kulan ka tirsan horyaalka liiga dalka Spain waxaana la ciyaari doontaa kooxda Betis. kooxda Barcelona iyo Betis ayaa is arkay laba jeer, laba kamid ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaan fiiro doonaa ciyaartooyda dhaawac ugu sheegi doonto kooxda Barcelona, waxaana maqnaan doonto Ansu Fati, Sergio Roberto iyo Piqué. Sergio Roberto ayaa ku dhacay caabuqa coronavirus 14 maalin karantiin ayuu galay. kooxda Betis caawa waxay weyn doontaa xidigaha Joao Cancelo, Alvaro Negredo, Joao Mari, kuwaasoo dhaawac ugu sheegi doonaan kulanka caawa ee la ciyaari doonaan kooxda Barcelona. waxaa kooxda caawa Barcelona dib ugu soo laaban doono Leo Messi, Marc-Andre ter Stegen iyo Philippe Coutinho, kuwaasoo kulankii ee Barcelona Champions League la ciyaartay kooxda coronavirus nasiino ku maqnaayeen. kulanka caawa diyaar ayay u noqon doonaan inay kusoo bilowdaan. ogeysiiska ciyaarta kulanka Barcelona vs Betis tartanka horyaalka liiga dalka Spain. ciyaarta caawa waxaa la daawan doonaa 5 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika ayay wada ciyaari doonaan labada kooxood. soo socdaal kulanka caawa ay wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Betis. saxda macquulka laga yaabo inay kusoo gasho kooxda Barcelona. dhanka guusha waxay kusoo bilaabi doontaa goolahay Marc-Andre ter Stegen, afida daafac waa Desti, Oscar, Lenglet, Jordi Alba. qadka dhexe waxaa ciyaari doonaan Busquets, Frenkie de Jong iyo Philippe Coutinho. weerarka Barcelona caawa waxaa ciyaari doonaan Leo Messi, Anthony Griezmann iyo Ousmane Dembele. saaxiibayaal, muuqaalkan waa sheergeli kartaan la wadaaga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona si ay ugu soo biiraan youtube-ka janalka Barca 252. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.